run ahaantii mashruucani waa mashruuca garoonka lagaga weecinayo biyaha waa درنيجkaas aan dhisayno waxaan u dhisaynaa waxa weeyaan say biyuhu garoonka u dhaafaan markii hore waxaan doonaynay biyo kala wadada albaabka garoonka ku dhacaya inaan ku soo xidhno maadaama درنيجkan uu wada qaadi kari waayay technical error bay ahayd farsamadan aasitaanku markaan درنيجkan banaynay wuxuu keenay biyihii ku soo dhacayay meeshii aan banaynay markii farsamadii markii hore muul hoosta marayna ka dhignaya la doonayay dabeeyay biyahani maadaama la muul kale meesha soo galaan ma qaadi kartay injineeradu yiraahdeen kolkii horena farsamada injineerada kale ayaa sidaa yiri sidaas markaa looga guuray haddii markaa uu sidaa u si banaanaado wadadii biyaha garoonkan ka weecinaynay ee biyihii halka ka boodayeen sababta keentay markaa taas ayay ahayd markaa كلية أنتي دتكو أنت وحقبت كل بيا أنا وقفي وحكي لك ورمي لكن شقد وطا صعوتها وأنا إلهي مهدي من الدعين أنا جهرتين درينيشكا لبناي وسديسي لورا مست درينيشكا وحكوب بحياة العقدان كوبيتون كنا $. درينيشكا يو قيبتها كذا قبناي إن اسمها كسميناي جرونك هرتيسا يبيان كذا عينيني مشروع كوبحيا $200,000 waxayna qaadatay waxa culus biyaha boormoodhan bas ku yimaada meesha garoonka magaalada oo ku hooseeya hawshan cid kale oo naga kaalmaysan ma jirin dakhliga 500 dumarka ku ururinayeen weeyi درنيجka dhererkiisu waad aragtaa waana qiyaasi kartaa waa ilaa iyo 6 متر qofku markuu waxa xumiis yiraahdo waxaan jirin buu sheegaa shaqadana waa la kala leeyahay waxana fulinta leh xilbaanaduna waa sharci dejiyaal in wax la qabtana kuwii ku farxi lahaa bay ahaan lahayn laakiin kuwii ka nixi lahaa ma aha wax qabadka waxa loo baahan yahay xilbaano dhanna ma xilbaanadu 90% waa rag wanaagsan حبد خلدنا بلادك ويسكت جرتا فريه إنه مصنع مركا وحوي رنحانتي هاوشاسي وهاوش عنقرن كوبت بعدين إنه روق الله دقي هدي بيجي أي جاران وحدا عايزين قرنكي بهالكي قدمه ديسو مركو ربقولي $60 دولة ده هسكول استاي دولة دي دحنا يروق يدكتور بقولي جر كنا تينا بكتم هذا أنا أو المسؤولين النسامين سي marka sidaas keentay inaan badbaado u sameeyno si dhalinyartuna meesh ugu intifaacsato